بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daawadayaasha qiimaha leh meel kastoo aad joogtaan iyo waqti kastoo aad daawanaysaanba kusoo dhawaada muuqaal cusub iyo shabakada At-Tawba. waxaad markasta nagala socon kartaan YouTube channelka iyo Facebook page-ka shabakada At-Tawba. maanta insha Allah ta'ala waxaan halkan ka bilaabi doonaa kooras ama duruusti xanaa oo aad u qiimo badan aadna u kooban dhamaanteen in wada anfici doona oo ah mid kamida duruusta aynu ballan qaadan inay halkan ka bixi doonaan ee dawratu taqriir wa tarbiya. kooraskaas oo ciwaankiisu noqon doono fannu tacaamul maca al-atfal ama tarbiyatul abnaa oo ah fan kamida funuunta cilmiga kuwada loogu baahi badan yahay xilligan hadda ah ee la joogo. aadna ay muhiim u tahay wax badan laga barto maadaama environmentiga iyo deegaankii maaragtaanay fisqi iyo fasaad aad u badan oo caruurtii saameeya oo kasoo daahiray ayna muhiim tahay in wixii aan uga hortagi lahayn oo aan ku maareyn lahayn fisqiga saa'idka ah ee meel kasta inala yaalahay inaan aqoon buuxda u lahaano ugu horeyso qaabkan ilmaheena ula tacaamulayno oo aan u tarbiyeynayno. tarbiyada inta badan 90% tarbiyada iyo dhaqanka wanaagsan ee inaan ilmaheena aan ku tarbiyeyno ay tahay waxay ka timaadaa sidaan ula tacaamulno ama qofka murabbiga ah markaas tarbiyeynaya ilmaha sida ula dhaqmo ula tacaamulo kama timaado awaamirta iyo nawaahida iyo tawjiihaadka la siinay waxaan sameeyay iyo waxaan sameeynin. inta ugu badan waxay ka timaadaa qaabka loola tacaamulo. idan mucaamalaadka mahaaraadka iyo xirfadaha ay tahay inaynu adeegsano si tacaamulkeena soo ugu beero akhlaaqiyad iyo tarbiyad dhameystiran ayaan insha Allah halkan step by step uga sharxi doona hadii Ilaahay qadaro iyadoo inoo noqon doonta xalaqaad musalsal ah oo hadba aan qayb soo gudbino hadii Ilaahay qadaro. akhwani fillah waxa xaqiiqo qof kasto inaga mid ah inuu jecel yahay inuu ilmo dhalo ilmo bisna ma jeclay inay ilmahaasi u noqdaan ilmo wanaagsan oo inuu ilmo wanaagsan dhalo ayuu qof kastaaba jecel yahay waana sida ambiyada Ilaahay weydiisan jireen ku duceysan jireen. nabiyullaahi Ibraahim oo kale waa kan rabbi habli min as-saalihiin nabiyullaahi Zakariya oo kale waa kan rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka samii'ud ducaa. sidaas iyo si lamid ah waxaanu jecelnahay qof kasto inaga mid ah uu jecel yahay inuu ilmo dhalo ilmahaas inay u noqdaan ilmo wanaagsan. hadaba su'aashu waxay tahay ilmo wanaagsan baynu doonaynaa sideen ku helnaa. نعم إلهي با إلمها بحية جل جلاله أن وناقنا إلهي با بحية إلهي إلمها صاب بحية وعدو دون المسيء يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء الذكورة أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما إلهي عدو دون إساء قبل السيء عدو دون ويل السيء عدو دون السقود درع عدو دون لبضا كمان عيا ومدليس كدقا أن سيدا سلمد وناقنا إلهي با بحية وإلهي عدو دون إساء هنونية وهجاجية عدو دون إساء باذية وهلاية يدل من يشاء ويهدي من يشاء. sidaas oo ay tahay Ilaahay wuxuu ina baray oo noo sameeyay sunan iyo asbaab macluum ah oo ilmaha lagu kasbado oo qofkii ilmo doonaya inuu sunnada iyo asbaabta la yimaado ay waajib tahay. aadan u naqaanaa oo aqoon buuxda ayaan u leenahay farsamada la sameeyo si ilmo loo dhalo. ma jiro qof inta meel iska fariista ilmaan raba Ilaahay iska weydiisto Ilaahay ilmo iska weydiisto isagoo wax dadaal ama asbaab oo la imanaya aysan jirin. waxa la sheegay nin oday oo adigu da'diisu weynaada جماعة كسر مساجد كاستاجا مركز سير علماء الله فاتحة اللي يمر إن الله علم السيو مركز دنبنينا سير بلنا كان أحواشي سواري سملا وانين إسكا أن إلهي نحريسي سوكاقو سلاي هاي وانو حسكولا أو دادي سينوينات مركز ننكيبا ورستيو كيري ما قلنا سوى قرست مركز سير جيبا ما أنا قرس وحناقا إما يصامر مركز ننكي والله يابا كسو الله بتمساجد كو فرست جماعتي دنبو سيدي عادة وأهيد أنت مساجد كيستاجور علماء الله فاتحة الله يمر إن الله المسيح مركز أنت كده بيستاجور نغفرز فاتحنا كومر من إذب من الهي مركز ضدك مساجد كجماعة مساجد كالله يابين ودهان ما حد نكان خير دون كويسة مركز سورة نكان مجدا إنه علم دلا أيور ربا يعني علم أيور ربا ذلك يو سبب كي علم لو إلهي علم كوسين لا إنه اللي ما ديار ما يعني وين هذه أنت أنو لاقي هاي weligiis ilmo inuu dhalo doonayay inuu guursano diyaar uma weligiis wax naagas ma uusan guursan. yani Ilaahay asbaabta aynu wada naqaano ilmaha nagu siiya oo ku kasbanaa sidaas si lamid ahna wanaaga Ilaahay asbaabu ku bixiya. asbaabta ilmo lagu helo aqoon buuxda ayaan u leenahay. asbaab lamid ah oo hadii aan la nimaado ilmihiina wanaagsanayaan way jiraan. asbaabtaana inaan barano oo aan aqoon buuxda u lahaano waa muhiim. haddii asbaabta qabyo ay ku jirto asbaabta ilmo lagu dhalo haddii haba yaraatay qabyo ku jirto waa xaqiiqo ilmahaasi ama sidii la rabo kuma soo baxayaan ama inaysan ba soo dhalana suurtagal ah. sidaas lamid ah asbaabta ilmo wanaagsan lagu helo haddii qabyo ku jirto ilmahaasi inaysan wanaagsanaan ay u badan tahay oo meesha yar ee qabyada ay uga jirtay in fasaadku uga bilowdo ay u badan tahay. idan
waxaa aad muhiim ah inaan aqoon buuxda u lahaano asbaabta ilmo wanaagsan lagu helo. ambiyada ilaahay markay ilaahay weydiisanayaan ilmo wanaagsan, asbaabta iyo shaqada ilmo wanaagsan ay ku soo bixi ilmaha wanaagsan ay doonayaan asbaabtii iyo shaqadii ay ku soo bixi lahaayeen ilaahay iyaga ayuu u diray jalla jalaaluhu. waxaa jira athar laga wariyo Fudayl ibn Iyaad al-Khurasani cabidka weynaa atbaacu taabiciinta ka mid aha. atharkaas waxaa soo guurinaya Imaam an-Nawawi kitaabkiisa Bustaan al-Caarifiin, si la mid ah waxaa soo guurinaya Ibn Casaakir taariikh Dimashq ayuu kusoo guurinaya. waxaan u malaynayaa Xilyatul Awliyaa li Abu Nucaym al-Isfahaani inuu ku qarnaa, laakiin ma hubo. atharkaas wuxuu leeyahay nabiyullaahi Daa'uud calayhi salaam ayaa ilaahay kula munaajooday: ilaahi kun li ibni kama kunta li, ilaahu sidaad aniga ii ahayd wiilkaygana u noqon. yacni sidaad ii fadishay ood ii karaamaysay ood aniga ii weynaysay oo dadka aad dooratay aad iiga dhigtay, si lamid ah wiilkaygana dadkaas ugu dar, oo sidaad aniga iila tacaamusho wiilkaygana ula tacaamul. yacni ilaahay wuxuu weydiisanayaa nabiyullaahi Daa'uud sida isaga loo fadilay oo loo weynay in wiilkiisana loo weynay. oo nabiyullaahi Daa'uud ilaahay dadku doortay ayuu ka dhigay, nabi buu ka dhigay, rasuul ka dhigay, boqor baa ilaahay ka dhigay. ataahu Allahu al-mulka wal-xikma wa 'allamahu mimma yashaa. cilmi aad u fara badan baa ilaahay siiyey, kutubta samaawiga mid kamid ah la siiyey oo waatayna Daawuud zabuuran. sidaas si lamid ah in wiilkiisana uu ilaahay uu dadka u doortay ee uu fadilay karaameeyay oo ka dhigo. ilaahay nabiyullaahi Daa'uud isagiiba shaqo loo diray calayhi salaam. ilaahay wuxuu u waxyeedaa leeyahay: ya Daawuud qul li ibnika yakun li kama kunta li hatta akuna lahu kama kuntu lak. nabiyullaahi Daa'uud haddaad doonaysid wiilkaaga sidaan adiga ku ahayna u noqdo, u tago u sheeg, waxaa ku tiraahdaa sidaad adigu ii ahayd ha ii soo noqdo, markaasaan u noqonaa sidaan adiga ku ahaa. yacni iskama dhici karto wiilku inuu iska noqdo sidii aabihii ahaa. isagaa loo diray shaqadaas. waxaa lagu yidhi adigu u sheeg macnaheeduna waa tarbiyey, sababtoo qofku wax dhan dhaqan dhan inuu la yimaado laga rabo, sheegid kuma noqon karo. marka yacni soo tarbiyey wiilkaaga waxaa kasoo dhigtaa adigoo kale. markaad adigoo kale kasoo dhigto, anigana waxaan u noqonaa sidaan adiga kuula tacaamulo. ficlanna nabiyullaahi Sulaymaan ayuu noqday acdamul malik fi lcaalam. yacni nebinimadii iyo rasuulnimadiina waa la wadaagay, boqornimadii waa la wadaagay, oo weliba wuxuu noqday boqorada adduunka soo markii ugu weynaa. waxaa suurtagal u ahayd in adduunkoo dhan within 1 second looga adeego, yacni awoodaha boqornimo ee uu lahayo xilligaas ilaahay uu siiyey. mafhuumka hadalku markaa wuxuu yahay tarbiyada wanaagsan ayaa ah asbaabta ilmo wanaagsan lagu heli karo. haddii aan doonayn inaan ilmo wanaagsan helno, waxaa inagu waajib ah inaan la nimaadno tarbiyad wanaagsan oo dhammaystiran oo aan qabyo lahayn. haddii haba yaraatee ay qabyo ku jirto tarbiyada aad ilmaha ku tarbiyeynayso, oo dhaqankeena iyo qaabkan ilmaha u tarbiyeynayno haba yaraatee ay qabyo ku jirto, meesha qabyadu ay ku jirto unbaa noqon doonta meesha sartu ka qurunto, meesha fidnadu ay kasoo daahirto, ilmuhu iska bedelaan, haba yaraatee qabyadaas unbay noqon doontaa. tarbiyad wanaagsan oo dhammaystiran oo la jaan qaada ilmaha hadba maraaxisha ay marayaan, marxalad kasta maxay u baahan yihiin, goormay bilaabanaysa, waqtigii loogu talagalay inay bilaabato ilaa laga gaaro dee xilligii ilmuhu ay ilmo isku filan oo dhammaystiran oo adduunkoodana yaqaan aakhiradoodana yaqaan ay noqon lahaayeen. intaas ka dhaxayda tarbiyad hadba marxaladda ay marayaan la jaan qaada ayaana loogaga baahan yahay, oo ah asbaabta aan ilmo wanaagsan ku heli karno. laakiin su-aashu waxay tahay faaqidu shay ilaa yucdiihi, qofku wuxuusan hayn ma bixiyo. haddaanan inagu aqoon tarbiyada dhammayska tiran sidaan ilmaheena ku sii lahayn, maxaan siinayna? inaan ilmo dhalnahay waajib inaguma aha. inaan inta guursano ilmo dhalno waajib na saaran maaha. waa sunno inaan la nimaadno, sunno mu-akada inaan la nimaadno ay muhiim tahay. laakiin haddaad ilmo dhashay inaad ilmaha tarbiyeyso waajib bay kugu tahay. idan waa inaan baranaa tarbiyada loo baahan yahay dhammayska tiran ee ahdi sidaan ilmo wanaagsan ku heli lahayn. ilmo wanaagsan aynu doonaynaa. runtii waalidkii ina soo tarbiyeeyey way nagu dadaaleen oo namay hagran, oo wixii aqoon iyo xirfado tarbawi ah markaa ay lahaayeen xilligaa kuba filnaa waa ayna siiyeen oo nagama aysan hagran. walow xilligan hadda la joogo waalidiinta jooga ay dhib badan ay qabaan, oo the environmentiga waa isbedelay. environmentiga xilligaa jiray dadka laga yaabo inaan anigu u yarahay environmentiga aan kusoo korna caruurnimadii. the environment wuxuu ahaa inta ugu badan aan saameyn yani negative ah aysan inta badan ka iman, oo aan tarbiyadii hadminayno dhaqamo xun oo tarbiyadii aad u ilmihii halleeya aysan ka socon. laakiin xilligan hadda environmentigii aad buu isu bedelay. environmentigii deegaanka aan maanta ku noolnahay dee waa deegaan fisqiga iyo fasaadka ka socda. aanba dhihi karno dadka dhul gaalo ku nool iyo dadka dhul muslim ku nool wax saasaba isma dhaamaan. yani hooyada ilmaheeda ku korinaysa dhulka gaalada oo dhul gaalo ku nool ee ka baqaysa ilmaheeda inay dhaqamadii gaalada iyo diintii gaalada ay qaataan ama gaaladii saameeyaan. hooyada halkan joogta
ilmaheeda halkan ku korinaysa wax saas kama duuna inta ay ka baqayso in la egbo ka socdaan halkan si fudud ay maaragtaan ay intaas ku saameyn karaan oo dhaladii bay ka socdaan oo maaragtaan telefonkiiba si fudud looga heli karaa waxaasoo aan ilmaha laga manage karayn karin oo noqdayba de wax ilmihii lagu madadaaliyo ayaa maanta inala yaala waxaad moodaa marka wax ay ku kala duwan yihiin bade dadkii dhulka gaalada ku noolaa dadkii dhulka muslimiinta ku noolaa inaysan jirin waxaan daawada kaliya maanta heli karno sida kaliya ula dagaalami karno waa inaan ku qalamaysnaa tarbiyad buuxda oo dhameystiran murabbiga xilligan jooga waxa waajib ku ah oo saaran inuu ka dheereeyo isagu uu ka aqoon badan yani aqoontiisu ay gaarsan tahay heer uu ka saameyn badi karo fisqiga iyo fasaadka deegaankiisa ka socda oo ilmihiisa saameynta isagu uu ku leeyahay ay ka badan karto ilmaha maaragtaan waxyaabaha uga iman kara deegaanka waxaan isla arkaynaa muuqaal oo 20 second camal ah oo laga matalo dadka ninka murabbiga xilligan jooga waalidiinta ama dadka murabbiyiinta xilligan jooga aqoontoodu heerka inay gaarsanaato yani saameyntoodu heerka inay gaarsanaato laga rabo bal waxaan isla aragnaa muuqaalka meesha waxa inooga muuqda waxa laga inaa isweydiisaan meesha tarbiya uga hadlay hayta baaladan oo inoo daaray meesha waxa inooga muuqda haram cad ceyrsanaya oo raba inuu ku quraacdo ama ku qadeeyo bahasha la yiraahdo deero haram cadka waxa lagu sheegaa xayawaanaadka duurjoogta wild animalska xayawaanka ugu orodka dheer ugu xawaaraha badan idan ma kula tahay deeradaas inay xayawaankaas orodka badan ee haram cadka in orod uga fakan karto bidabci la suurtagal ma aha inay xayawaankaas cadowgaas orodka dheer inay uga fakato orod idan qofkii raba inuu deerada badbaadiyo deerada cadowga adduunka ugu orodka dheer uu ceersanayo qofkii raba inuu badbaadiyo maxaa la gudboon sidoo ku badbaadin karaa haddaan si kale u dhigo canuga adiga dhashay haddii deerada ka soo qaado oo cadow sida orod badan uu ceersanayo sidee kula gudboon oo aad ku badbaadin kartaa canugaaga ama deeradaas aad ku badbaadin kartaa bal halka wado ee furan ee deerada lagu badbaadi karaa isla aragno sida inoo muuqatay ninkaasi masabay halka wado ee lagu badbaadin karo deeradaas ama aday canuga adiga dhashay ay tahay aad ku badbaadin kartaa waa inaad adigu ka orod badan tahay haram cadka si kala suurtagal uma aha qofkii raba inuu deerada badbaadiyo waa inuu haram cadka ka orod badan yahay oo ay suurtagal u tahay inuu inta deerada qabsado oo haram cadka kala carari karo isagoo orod uga dheereyn karo muuqaalka marka macnihiisu wuxuu yahay murabbiga xilligan joogaahi waa inuu ka saameyn badan yahay faasiqa iyo faasidka raba inuu ilmaha fasaadiyo deegaanka fisqiga iyo fasaadka ka socda waa in tarbiyadiisu ay ka dheereynaysaa waa in isaga saameyntiisu ay ka dheereynaysaa fisqiga ka socda iyo midka faasiqa ah raba inuu ilmaha fasaadiyana isagu waa inuu ka saameyn badan yahay ugu horeeyay ibliis ilaahay hortiisa ka cadeystay inuu cidna dhaafin bini aadamka oo dhan u baadiyeynay fa bi'izzatika la aqwiyanhum ajmaciin oo de maalintii isaga loo dhalay adiga canuga lagu dhalay isagana canuga loo dhalaaho kii baadiyeyn lahayo oo lagu salidi lahaa baa isagana u dhasha cid kastoo ibliis isna u adeegto gaaladii ugu horeyso ilaahay iyana sheegay inay cadaawad naga deeyeen ilaa ay diinta naga fidnaya walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yuriduukum can diinikum ilaa ay diintiina idinka fidnayaan idinka deymayaan dagaal ilaahay uu leeyahay gaaladaasoo meel kasta inoo soo marsiinaya sidii ay noo fidnayn lahaayeen ay noo baadiyin lahaayeen meel kasta noo soo marsiinaya haddana aad ba moodo in dhaqamadoodii automatic loo qaatay oo deegaankii haddaad fiiriso environmentkii dalkii dhalinyartiiba ay dhaqamadii caadi la tahay gaaladu waxaasoo dhan qaabka kaliyan uga badbaadi karnaa qaabka kaliyan uga dheereyn karnaahi oo aan saameyntaas xun ilmaheena uga ilaalin karnaa inaan inagu ka saameyn badannahay oo aan maaragtaan tarbiyada inaga aan bixinayno ay ka saameyn badan tahay waxaa kasii horeeya marka sidaan sheegay inaan inagu aqoon u leenahay tarbiyad dhammaystiran oo ilmahaasi yani gaarsiida saameynta tarbiyada ka imaanaysa inay ka dheeraato ay ka qaalib noqoto midda ka imaanaysa deegaanka insha allahu tacaala waxaan halkan ka bilaabi doonaa marka sidaas aan sheegnay kooras ama duruus taxano ah oo aad idinoo wada anfici doona oo haddii ilaahay qadaro aan wax shuruud ah ku xiran haba yaraatay aysan jirin oo aan ka ahayn adiga ay ku anfacayaan daawo oo dhammayso si fudud baad ku heli kartaa inaad soo gasho page-ka ama YouTube-ka ayaad ku heli kartaa kaliya waxa ku xiran inaad sii faafiso dadka asxaabtaada aad la sii wadaagto in dadaal ala alkhayr ka faacilihi wixii inagu aan dadaal badan ku kasbano adigu si fudud inaad ku heshaa laga yaabaa oo share ama like aad tiraahdo bis aad ku hesho marka haddii ilaahay qadaro aniga ayaa soo jeedin doona kooraskan
oo maaragtaanay aadan uga cudur daaranaya maadaama dee cilmigan uu yahay fanni aad u ballaaran oo aan qof kasta aysan geli karin qof dee takhasus iyo aqoon buuxda u lamaahane aniguna ma ihi dadka mutakhasisiinta ku takhasus laakiin dadka waxaan ahay daraaseeye oo wax badan dee ka qora oo wax badan ka akhriya waxna ka qora waxa laga yaabaa fanniga labaad oo anigu akhriska badan haba marka insha Allah idinmana soo gudbin doono wax dee anigu khibrad iyo aqoon aan leeyahay wixii dadka yaqaana ay ka qoreen baan idin soo tarjumi doona buugaagtii kutubta laga qoray oo marjac iyo asal ay u yihiin alkitaab wa sunna ayaan insha Allah idin soo gudbin doona casharka xiga ayaan insha Allah toos ugu gudagali doona intaan iska muqaddamo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.